سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. ولا تجد راسنا بيدك ماض فينا حكمك. نسألك يا الله بكل اسم لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في أهل الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكاشفا لكربنا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وبركة في أرزاقنا. يا الله يا الله يا الله، نسألك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة نتوجه إليك يا رب، نسألك نتوجه إليك يا مالك المؤمنين. اللهم فينا ضعفاء، فينا نساء وعرائس، فينا أيتام، فينا أولاد، فينا أطفال، فينا حفاظ القرآن، فينا معلمين ومتعلمين، فينا شيوخ الركع، وفينا صبيان الرضع، وفينا بهائم الرتع. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما سألك منه عبدك محمد وعبادك الصالحون، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رالي هذا وادبنا والله. رالي هذا ما أنت قالوا دي.
يمد قرحة تاجن إلهي إني بريانو يمد أرتوحان لا يهي كل جان إلهي دعاء هنجا أقبله سيدو الشيخ النوشاقي waxa ugu muhiimsan oo maanta sameyn karna waxay tahay inaan Ilaahay barino waxaan rabaa inaan idin sheego sida kaliya oo dib uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dibka annaga sukan mas'uuliyadda ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga cadeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas'uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha nala ka bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtano waxaan naga go'an oo ilaahayna ka baryaynaa inaan ummadan sida ugu cadliga badan oo u dhaqi karnaa aan u dhaqno sida kaliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo sameeyno marka aan aqbalnana aan ka heshiino sida aan uga bixi lahayn waqtigii xoolaha wadanka la dhacayo way dhamaatay waqtigii la isku xadgudbaayo way dhamaatay waqtigii albaabada la idinka xiran jiray way dhamaatay waqtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtanka waxaan idin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idin sheegno si daacad ahna aan wadankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin kara dhibaatada wadankan laakiin waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareeynayaa in bilaaw cusub uu bilowdo waxaan idin ballan qaadayaa marka aad qorraxda fariisataan inaan idin la fariisan marka aad faraxdaan inaan idin la faraxno marka aad murugootaan inaan idin la murugoon wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkan u baahan yahay inaan idin dhageysano albaabadana aan idin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibku naga saari doona hadii ilaahay raado ilaahay qalbigeena isu soo dhaweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeena ha sugo ilaahay cadaaladda ha na waafajiyo ilaahay dhibkan ummadan dhibaateeyay sanadaad badan ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay rabbi oo xaq nagu dub ilaahay rabbi isku soo no dhaweey ilaahay rabbi oo qabyaaladana baabisa naga qabo ilaahay rabbi oo adduunyadan aan wax ka raadinayno noogu bedelina anagu qalbigeena anagu wax iska raadino ilaahay shacabka Soomaaliyeed isku soo dhaweey ilaahay sharafteena noo soo celi ilaahay karaamadeena noo soo celi ilaahay culummadeena barakeey ilaahay dhalinyaradeena barakeey ilaahay dumarkeena barakeey ilaahay madaxdeena anigu aan ugu horeeyo xaq waafaji ilaahay xaqna waafaji ilaahay xaqna waafaji ilaahay idin barakeey kulli assalaamu calaykum oo dalkan ku soo laalaabtay abaar waa abaartii ama dhibaatadii saddexaad 1992 iyo hadda waa 3 jeer mid walba ka mid ah waxaa ka horeeyay dhibaatooyin aan annagu gacmaheena ku kasbanay dhibaatadaas oo ah jariimada ugu weyn oo aadanuhu kasbado oo ah nafta muslimka ama mu'minka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyay dhiigii ha loo daadiye waxaa la waayay dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya rasuulkeenu salawaatullaahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi la ta'murunna bilmacruuf wala tanhawunna cani ilmunkar wala ta'khudunna calaa aydi الظaalim aw la yusallita allaahu calaykum cadaaban ثم تدعون فلا يستجاب waxaad faraysaan wanaagga xumaantaad iska reebaysaan qofka daalimka ee dhiigga muslimka daadinaya ee hantidooda burburinaya baad gacanta qabanaysaan haddaydan yeelin dhibaato idin camimta alla idinku soo dejinayaa ilaahay baad baryaysaan laydimana ajiibayo ikhwal acizaa waxaad u jeedaan beled iyo baadiyaba waxa ka dhacaya dad abriyaa aad u badan yahay waxaa dhacayso dalka madaxu leeyahay haddana insha Allah dawlad cusub ayaa noo soo socto dawlado badanna waa soo marnay waxaa suurtagal ah dadkii mas'uuliyiintaas ahaa qaarkoodii wasiiriin ha noqdaano ama xildhibaan ha noqdaano in xaqul naaski aad loogu tagrifalay oo xoolihii meeshii laga rabay in la marsiyo aan la marsinin mas'uuliyadii meeshii la rabay in laga qaado
aynan u qaadin oo aynan u fahmin mas'uuliyad inay tahay takliif qabla an takuna tashriif waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta hore ahaa oo weliba laga yaabo haddana inay rabaan mar lamaad ay mas'uul noqdaan ilaahay ha ka baqaano ha xisaabtamaano maxaa ka horreeya ha ka xisaabtamaano xadiid waxaa jira oo saxiixeenka ah qoraayo oo nabiga leeyahay ummaddiisa la khitaabayo asoo khudbo u taagan ayuu wuxuu yidhi laa ulfiyanna axadakum qofkiina aanan helin qiyaamo markii la gaaro wa fii riwaaya laa alqayanna axadakum qofkiina aanan la kulmin qiyaamo markii la gaaro calaa raqabatihi baciirun lahu ruqa aw ruqa dhabarka ka saaran yahay neef geel ah oo qaylinahayo oo doombadiisa garacayso oo dhabarka ka saaran yahay oo ku wado yaan la kulmin saas oo kale washaatun taycar ri ari ah oo dhabarka ka wado hay iimaanin uu yidhi walaa aydan samma wax dhagala oo aan hadlaynin oo lacagta ah dahab iyo fido iyo dollar iyo lacag nooc kasta ha ahaatee asigoo humbaarsan yaan iimaanin uu yidhi oo uu dhahayo markaas yaa rasuul allah ishfac lii aghithni لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الظلم وكشف الغم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha Soomaaliyeed ee isugu yimid meeshan alla bariga salaatul istisqaha oo roob doonta ah inaynu ilaahay u toobad keenno waa arrin aad u fiican oo sunnadii nabigeenna ah calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin maanta waddankeenna dhibaatada ka jirta oo waddan magaalo Soomaaliyeed ama gobol Soomaaliyeed oo fayow maanta uuna jirin wax kalena ma aha ilaahay roob inooma waayin baad iyo biyatoona inooma waayin waa nooc ciqaab ah waa dembi innagu aynu gallay إلهي بقرآن كله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير واحد ذنوبته واحد دباته مصيبه أبار